أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan dhammaan salaamayaa ummadda reer Hiiraan State qaasatan gobolka Hiiraan ee aan gudoomiyaha ka ahay maanta oo bishu laba tahay bishii 7 2023 waxaan kormeer ku soo sameynay dhammaan magaalada Beledweyne xaafadaha ay ka kooban tahay bulshada waxaan la wadaagnay inay amniga ka shaqeeyaan qaasatan gobolka Hiiraan ee aan focal point-ga ugu ahay madaxweynaha Hiiraan State Mudane Cali Jeyte Cismaan waxaan rabaa inaan ka shaqeyno amniga dhammaan waxaan rabaa inaan bulshada u sheego inay ku qaban karaan shir kasto mid annaga naloo ka soo horjeedo iyo mid annaga nalagu taageerayaba labadaba oo u fasaxan yihiin in lagu qabto magaalada Beledweyne waxaan rabaa inaan hay'adaha samafalka aan u sheego inay bulshada la soo gaaraan baahiyahooda ayaga naftigoodu waxaan kula shaqeyn doonaa si voluntary hay'ad la cuna qabatayn doona ama wax la weydiin doona ma jiraan haddii ay jireen waxaas waa soo dhamaadeen annaga waxaan diyaar u nahay inaan bulshadeena wax u qabanno waxaan rabaa dadkii Hirshabeelle hami ka hayo Hirshabeelle annaga hal sana iyo abafaan waxaan la dirinaynay al-shabaabna kula man dirinaynin dabaabaade waxaan kula dirinaynay qoryaana hadda wadano iyo ciidamadan hadda taagan Hirshabeellena aydan kula diriri doonaa waxaan rabaa inaan u sheego bulshada Soomaaliyeed qaasatan bulshada reer Hiiraan State meel kastay dalka kala joogaan maamulka qaybihiisa kala duwan ee ku shaqeeya haddii ay ahaaleeday xafiisadii haddii ay ahaaleeday kontarooladii laga soo galaya magaalada intaba waxa gacanta ku haayo ciidamada Hiiraan State waxaan rabaa halka inaan baaq uga diro ciidamada booliska Soomaaliyeed waa ciidamada booliska oo Soomaaliyeed waxaan rabaa inay ku ekaadaan xerooyinkooda haddii aysan la shaqeynayn daraawiishta Hiiraan State haddii intaas wax ka baxsan yimaadeen waxa hadduu alla ku diidan qaado doono culays allaala culayskii ka yimaado ciidamada booliska Soomaaliyeed annaga waa ixtiraameynaa waa ciidan boolis oo Soomaaliyeeda wada shaqeynaa nagala dhaxayso sida ciidamada kale nabad sugidda iyo militariga ay nagala dhaxayaan ee ayagana nagala dhaxayaan intaas wixii dhaafsiisan ee siyaasad ku milmane ayaga ayay dushooda tahay waxaan rabnaa inaan bulshadeena Soomaaliyeed sida banaanba annaga Hirshabeelle shalay qasabaan aan nolol ku imaanay annaga qasabkii waa ka wantoomnay waxaan u gadanay hubaan u gadanay hal sana iyo abafaan waxaan aan la diriraynay al-shabaab haddii Hirshabeelle ka xoog badan tahay haddaan is arki doonnaa hadday ka fududahayna walaalayaal kuwaas waa tageene annaga cid kasta oo fikir ka duwan qabtaa magaalada Beledweyne waxay rabtay ku qabsan kartaa cid allaale cidii annagana taageersanna magaalada Beledweyne ay ku qaban kartaa xalay ayaan waxaan maqlaayay niman habeen madow dhuumanaayo war maalinta cad imaada ee ummadda wax u sheega sida banaanba magaaladaanu dadku waa is yaqaaniin magaalada Beledweyne amnigeeda gacanta waxa ku haya ciidanka daraawiishta Hiiraan State aydaana wax laga weydiinaya intaas wixii soo dhaafsiisan in magaalada xiisad dadkan shabaabay aan muddo la soo dirirayay biyabaxa xoo hayna dadkan soo waxeelaysay xilligan in lagu kor dagaalamo ama siyaasad qaldan lagu waxeeyane dadkan waa ka waantoobeen 15 sano Soomaaliland oo laascaana diidaysa oo haysataa diiday annagoo 6 sano waxaan dhamayn annagana lagu kor hay maayo waxaasna waa ka diidnay annaga maamulan ka dhisannay cid kasta oo Hiiraan State ka qabta dhaliilna waa la fadhiisan doonaa waa ku qancin doonaa haddii ay tahay dhalinyarada haddii ay tahay odayaasha qalbi furan ku soo dhawaada maamul adika leedin ku soo dhawaada madaxweyne adika leedin ku soo dhawaada gudoomiye gobol adika leedin ku soo dhawaada intaba ku soo dhawaada annaguna waxaan ballan iyo axdi nagu ah inaan la shaqeyno bulshadeena midka cuuryaanka ah midka hadduu alla ku diidan indhoolaha ah midka waayeelka ah intaba inaan annaga la shaqeyno la fadhiisanaan diyaar u nahay baahida dadkeenaan diyaar u nahay inaan xaq abtirno waxaan nagu ballan iyo axdi ah inaan bulshadeena dareenkeeda aan ka mid dhalino haddii kun ruux ay u dhimanayso wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu